habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa Home Cable TV waxaan ahay Liban Bolo warka habeen qodobada ugu door corona daawad doontaana waxa ka qayb noqonaya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxay u xaqiijisay in gacanta dawladdu ay soo gashay deegaano dhowr ah oo al-shabaab ay ka talinayeen muddo 15 sano ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu magaalada Hargeysa kaga qayb galay maalinta saxaafadda Soomaaliland oo xuskeeda halkaasi uu ka qabsoomay waxa sidoo kale warkayga aad ku daawad doontaan hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo dhaweyn balaaran waxa lagu sameeyay magaalada Oodweyne xukuumadda Soomaaliya iyo qaramada midoobana waxa ay ka wada hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray dagaalamayaasha hubeysan ee al-shabaab wasiir oo looleynaya sidii Ingiriiska ay aqoonsi u siin lahayd Soomaaliland xilka ay iska casilay Ilhan Umar oo ka tirsan Kongareeska Mareykankana waxay markii saddexaad ku guuleysatay doorashada degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee Kongareeska Mareykanka qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan warka habeen oo si toos ah kaga imaanaya xafiiska Muqdisho ee Home Cable TV u diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo goor u daawataan insha Allah